Marayaha cisbitaalka guud ee magaalada Wardheer oo warbaahinta deegaanka u waramay ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Wardheer iyo nawaaxigeedaba ku wargeliyay inay ka faa'iideystaan qaliinada faruuryaha iyo dhanxanaga oo ah mid bilaash ah. Wariye Bashir Cabaase ayaa faahfaahinta warkani inoo soo diray. Marayaha cisbitaalka guud ee magaalada Wardheer Dr. Cabdinaasir Cali Abshir oo warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV u waramay ayaa bulshada Soomaaliyeed ku wargeliyay inay ka faa'iideystaan qaliimada faruuryaha iyo dhanxanaga bilaashka ah oo laga fulin doono dhawaan cisbitaalka guud ee magaalada Wardheer, isla markaasina qaliimadan ay iska kaashan doonaan hay'ad fadhigeedu yahay dalka Jarmalka iyo cisbitaalka magaalada Wardheer oo kaashanaya xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida, waxaana la bilaabi doonaa qaliimadan 7 bisha ilaa 15 bisha February ee sanadkan aan ku jirno. Marayaha cisbitaalka magaalada Wardheer Dr. Cabdinaasir Cali Abshir ayaa warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV uga warbixiyay. Bismillah. Waxaan rabnay maanta inaan fariin u dirno bulshada Soomaaliyeed fariintuna gaari doonto gaar ahaan bulshada gobolka iyo nawaaxigeeda ku dhaqan gobolka Doolo. Fariintaas oo ah in bisha February 2026 toddobadeeda ilaa 15keeda uu Wardheer Hospital marti gelin doono qaliimada bilaashka ah ee faruuryaha iyo dhanxanaga, kuwaas oo ay fulin doonaan dhakhaatiir Soomaaliyeed oo deegaanka u dhalatay oo ka shaqeynaysay muddooyinka u dambeeyay hawlaan ka shaqeynaysay iyadoo ka soo filiyay deegaamo kala duwan oo Soomaalidu degto, hadday noqoto deegaankeena iyo gobolada deriska ee Soomaaliya. Qaliimadan oo ay iska kaashadeen hay'ad fadhigeedu yahay dalka Jarmalka, xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka iyo hospitaalka guud ee Wardheer, ay ujeedku tahay in looga faa'iideeyo dadyowga la dhiban xanuunada rabbaaniga ugu dhacay ama qofku uu kasbaday la xiriira faruuryaha dhanxanaga. Qaliimada si bilaash uga bilaaban doonto 7 bisha February socon doonana muddo 7 cisho ah ay ujeedku tahay in dadka looga faa'iideeyo. Qaliimadan sida caadiga ah haddii la dhaho dhakhaatiirtu qofku lacagtiisaas ku daweeyo wada qaliimo qaata kharash badan qaata. Marka fursadan oo ah fursad qaali ah waxaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed cid kastoo fariintan u gaadho in ay ka faa'iideystaan isla markaana iska diiwaan geliyaan waaxda liisinga ee hospitaalka guud ee Wardheer, iyadoo boorkan iga dambeeyaan ku daabacnay nambarada lagala soo xiriiri karayo registrationka iyo diiwaangelinta laga bilaabay. Already hadda way bilaabtay diiwaangelintu, bukaano badan baa hadda soo diiwaangeliyay. Marka waxaan bulshada Soomaaliyeed si guud ugu boorinaynaa inay ka faa'iideystaan fursadan, loogana faa'iideeyo caruurta iyo dadka waaweyn ee la dhiban xanuunadan hadda la ku soo geliyaa faruuryaha dhanxanaga si bilaashan uga bilaaban doono hospitaalkeena taariikhdan sheegay insha Allah daaleen. Bulshooyinka guud ee ku dhaqan gobolka Doolo iyo bulshada Soomaaliyeed ee fariintuna gaari doontaba maadaama muddo ay ka hadhay ololaha xilligu bilaaban lahaa in looga faa'iideeyo oo laga faa'iideysto fursadan. Waa fursad qaali ah, waa fursad gurigeena noogu timaaday, waana dadaalada xafiiska caafimaadka hadda la ku soo geliyaa uu ku bixinayo in laga jawaabo sektorka caafimaadka baahiyaha ka jira. Marka bulshada waxaan ku boorinaa in laga faa'iideeyo, looga faa'iideeyo dadyaga la dhiban isla markaana diiwaangelinta ay ka soo qayb galaan insha Allah. Aad baa mahadsantahay. Tababar ku saabsan khataraha hadallada nacaybka iyo faafinta wararka been abuurka ah ayaa ka qabsoomay magaalada Jigjiga. Wariye Maxamed Cabdi Garbo ayaa faahfaahinta warkaasi inoo eegaya. Tababar ku saabsan kasinta fahan ee dheeriya wariyaasha ka howlgala warbaahinta qaybaheeda kala duwan, baahinta hadallada nacaybka iyo faafinta wararka been abuurka ayaa ka qabsoomay hoteelka Hagarlaawe ee magaalada Jigjiga. Tababarka